السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيكادني وشيكو آدي آد هديات دلنيرتحي wax badan ku kordhin doonta si fiican dhagaha furo kana faa'iideyso. Ninkan wiilka ahi waxa uu iga sheekay in uu ahaanin dhalinyar ah waa nin darawal ah taxi buu iska wataa oo magaalada ayuu ku xamashay hase ahaatee in dambe ayaa waxa isbarteen asxaab xun inta badan dhalinyarta waxa looga soo dhaca asxaabta xun ee aan fiicnayn waxay bareen buuri balwadii waxay bareen nagaha xun jirkooda ka ganacsada waxay bareen guryo dumarka noocaas oo kala ah magaalada uga kiraysan ayay bareen dabadna ninkii shaqaysan jiray kartida lahaa waxaan isu bedelay nin habeen oo dhan guryaha khariban ku maqan subax iyo maalin oo dhan hurda dabadna noloshaydi intaas ka bixi weeyday cidhiidhi iyo waxaan dareemay in aan isani sax ahayn waxaan dareemay in wax badan ay iga maqan yihiin wuxuu ramadaantu markay soo gasho weligay ma soomo soonku xisaabtaba iguma jiro haddaba halkay wax iska bedeli doonaan waa halkan bil ramadaan oo 26 ah oo intii hore oo dhan ay soo dhaaftay inuu hal baal aan soomin ayaa maalintii 27aad siday Soomaalidan dadkuna ay yihiin ayaa masaajidka galay anoo leelitul qadriga raba in ka faa'iideysto dabadeedna markan salaadii aan galan xoogaa ku jiray ayaa dhammaan humuumtii iyo dunuubtii wixii oo dhan ishow ay ku soo dhaceen dabadeedna waxaan bilaabay buur sida ilmaha yar uu ooyo inaan ilaahay aan hortiisa aan ugu ooyo aan waxaan tabanayo aan isaga aan u sheegto ilaahu ii dambi dhaaf ilaahu waxa way xumaanaha sameey iga dhaaf ilaahu noloshan khariban hadda aan ku jiray iga saa dabeedna waxa dhacday in waqti yar kadib ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan rajaynay inuu ducadayda aqbalay asxaabtii xun oo dhan ban halkii ku joojiyay habeenkii laga bilaabo waxaan bilaabay buuri in masaajidkan si toos ah aan ugu xidhnaado waxaan bilaabay buuri in aan waxa weey soonka xataa ka faralka ahba marka laga imaado sunnaha ah ku dadaal oo aan isniin kasta iyo khamiis kastaba waxaan ahay mid sooma dabadna ninka wiilka ahay wuxuu sheekadiisa ku soo koobay halka isbedelka weyn uu ka dhacay waxay ahayd ducadii aan maalintii habeenkii 27 ka sida weyn aan ilaahay wax ugu sheegtay halkii ayaa ku toobad keenay wixiina dib ugu noqon sheeko kale waa gabadhan waa inan waxay ka sheekeynaysaa inay jaamacad ka baxday waliba jaamacad fiican ka baxday qiyaastii gabadh dadaal ka muuqdana uu yahay way tahay sheekadana iyaduna si toos ah ay ugu ramaysaa waxay tiri waxaan isku day inaan meel wal iyo boos kasta oo shaqo la soo xaysiin inaan codsado meel walba waan geeyay waxa ay ku dhowdahay dhowr boqol ilaa 200 wax ku dhow oo boos ayaan xariistay mid kaliyana laygama soo jawaabin tabadan dawaq iyo niyad jab iyo waxa weey inaan warwari ugu dhacoon ilaahda halkii laga haysta ayaan bilaabay hase ahaatee maalmaha kamida ayaan go'aan gaaray waxaan gibigeyda faraha ka qaad waxay tiri waxaan si toos ah aanu yaqiinsaday horta saaqdiya bixiya soo ilaahay ma bixiyo intaan dadkan daba cararaayo ee aan baryaayo ee aan toogayo ee aan soo xaysiinayo in baahideyda aan u sheeganayo anigoo ilaahay u sheegta ayaa dhaanta dabeedna waxaan bilaabay in dhikriga iyo ducada iyo xuska alle aan miciinsada si joogto ah ilaahay aan baahideyda aan u sheegto go'aanna waxaan ku gaaray shaqo kasto soo baxda waan codsan doonaa laakiin hamiga iyo rajada iyo diilada kuwii hore aan u hayn jiray inaan u hayn aan idhaahdo bal ku eegtana maalmaha kamida 2 bilood gudahood maxaan barnaamijka isaga ah wado aan sida tooska aan ilaahay aan ugu xidhanahay baryadayda iyo cibaadadu ay cirka ay marayso ayaa la soo sheegay shaqo meel ka banaanaatay shaqadii baan markiiba leeyahay soo xareey waan xareeyay anoo wax rajo ah aan ka qabin imtixaan baan galay 100 qof baan imtixaan kula galayaan kula tartamaya kaalinta labaad baan galay weetri imtixaankii interviewgii baa la naga qaaday interviewgii markuu soo baxay kulankii shaqaduna qofkii koobaad baan noqday halkii baan shaqada ku helay waxaan filayaa awoodda ugu badan waxa halkayga soo gaadhay waxay ahayd bay tir gabadhaasi waa ducadan ilaahay aan miciinsaday sheeko kale oo saddexaad oo iyadana xiiso leh gabadh oo hooyo ah hase ahaatee jimcaha markii ay gaadho galinkiisa dambe ayaa waxay bilowdaa in ilaahay ay xusto waayo galinka dambe jimcaha waa lagu sheegay saacad qofkii ilaahay barya aanu ilaahay ducadiisa aanu soo celin dabadeedna waan iska dikriyaa waan ku celceliyaa waa dhaqankayga caadada joogtada ah adigana dhaqan ha ku noqoto dabadeedna waxa dhacday waqtiyada kamid ay gabadhi lacag ugu yeelatay gabadhi aad ay igu qaanabtay lacagtii way igu adkaysay hadalka igu kululaysay heer yaani aan ka gabi waayay maalin walba weydiin jirtay waxay tiri isla waqtiga gabadhaasi deynta ay igu leedahay aadkay igu celcelinaysay sida adag ay iga wareysanayso ay mar walba ay leedahay waxa iga keen sida aan xariisay aan ka muuqan waxa jirta ilmo aan dhalay oo xanuunsanay isaguna xanuun ilaa hadda la garan lahayd ilaa waqtiga waxa weeye ay haya dabadeedna ilaahay ma si toos ah aanu bariyay ilaahay ma si waxa weeye qalbigaygu yaani aan inta in lagu shakiya aanu ku jirin ilaahay aqbali doono ayaan ilaahay u bariyay gabadhii waqti yar kadib waa waxaan badnayn kadib ayaa waxa dhacday gabadhii aan wax walba aan u sheegtay kun cudur daar aan u sheegtay iga aqbali weeyay in maalmaha kamid ay la soo hadasho ina garwaaqsato dhibaatada haysatana way la dareentay
iska dhaafe gabadha waxay ku dhawaaqday in lacagtii ay igu lahayd horta ay iga daysay intaa waxa ay igu dartay waliba lacagtii oo kaliya maaha intii ay igu lahayd labalaabkeedna waa ii soo dirtay way tiri halkii ayaan ku yaqiisaday ilaahay subxaanahu wa tacaala qofka isku xidha in aan marnaba aan ku qadayn waxa muhiim ah inaad ogaato waqtiyada adiga lagu jiro imika iyo waqtiyada kale faraha badan ee soo socda ama iman doona ama adiga si gaar ah ku qabsan doona waxa muhiim ah inaad naftaada ilaahay u dhiibto subxaanahu wa tacaala kuma lihin ka tag oo faraha ka qaad oo shaqadii bini'aadmiga iyo waxa way hawlihii ay ahayd inaad qabato ka seexo laakiin waxaan ku leenahay kuwa adoo qabanaya laakiin marnaba hankaagu yaanu noqon inaad waxa wax ku helaysid inaad wax ku helaysid waa inaad yaqiinsataa baryada ilaahay isbihinbihintaad ilaahay baahidaada aad u sheeganayso hoos dhigad ilaahay hoos dhigaysad leeda ilaahu adaan waxa way rajadeeda koobaad ah marka waxa loo baahan qofka muslimka inta badan waxa way dadkeena waxa ku dhacda in uu isu siiyo waxyaalaha maadiga ah waxyaalaha yaani dadka ku xidhan waxyaalaha dadka xaggooda uu ka helayo marnaba inta badan dadka kuma soo dhacdo waqtiyadaas oo kale in ilaahay xaggoosa ay u cararaan marka videogan waxa sheekadiisu ay tahay fariinta aad ka faa'iideysaa waxa ay tahay in ilaahay xaggiisa aad u cararto si aad ku guulaysato waxa aad doonayso iyo wax ka fiican waana ka heli doontaa ilaahay subxaanahu wa tacaala videogan haddaad ka heshay fadlan barakallahu fiik waxaa codsi ah anagoon kugu amrayn inaad isku daydo inaad asxaabtaada aad la wadaagto isla sidoo kalena guriyada aad ku jirto aad ku share garayso page-ka haddaanad ku xidhnayn hadda ku xidhnow haddaad youtube channelka aad ku cusubtayna meesha cas inaga caddee salaamu calaykum